ganacsigooda xanaaniya dhiirigelin dhexeeriya baa habboon maryanay saaka aaway carruurtii soo fasax maha xaaji gurigii walaashay ayaan u diray ma taasaad maantana la timid bal iga sheekay waxa gurigoodan ka kaxeeyey cabdiyow sow ma shaqaynayo markay hawshu igu badan tahay gurigii walaashay baan u diraa halkaasay ku soo nafisaa aniga ayaa markii hore dayacnaa iyagiina waa dayacday soo maaha cidda yacni ma jirtee carruurteennu imikuunbay ugu farxad badan yihiin sideenaan u dayacnayn ma cid baa dhar ii maydha ma cid baa iga war haysa ma cid baa xaalkaan ku suganahay og cabdiyow miyaynaan arrimahaa ka wada hadlinaynaan dhammayn mise markaan anigu yaro mashquulo ayaad halkaagii ka bilowdaa dirirta mashquulka aad sheegayso ma garanaya anigu miyaad ilowsan tahay ciddan aan bannaanka u fadhiyo inay tahay adig iyo carruurta anig iyo carruurta midkaayana daryeel ma haysto adiga taada ilaa hadda ma garanayo waxaan ku daweeyo carruurtuse wax alaali wax dhibaatay qabaani ma jirto ee way faraxsan yihiin anigu ciddaan maalin kasta boodhka iyo habaaska ugu jira waayo oo anigu yaan u fadhiyaa waddada wadda fadhigaaga mooye anigii carruurtii baa is arki bala cabdiyow haddaanad runta ka indhaqarsanaynin maanta maalinaynu ka fiicannay ma jirtee wax kastaana way nagu filan yihiin anigu waan ku fahmayaa maryanay waxaad doonaysa oo aan dibad fadhiisi ahayn ma jiraan maaday fahmayba anigu waxa keliya oo aan doonayaa hanti aynu leenay oon wax ku qabsanno inaynu meel dhiganno oo aan nolosheennana wax ka beddelno maryanay waxaas oo dhan oo aad ka hadlayso waxa ka muhiimsan daryeelka gurigeenna haddii aynu si wanaagsan u shaqaysanno oo aynu lacag samayno waxaynu furanaynaa dukaan weyn si ay cashuurtuna inooga yaraato maryanay maqal waxaad ii sheegtaa waxa aad tilmaamaysaa sida ay guurkeenna u badbaadinayaan waxaad doonaysaa nolosheennii hoosaysay inaynu ku noqonnaad doonaysaa walaal soo riix albaabka assalaamu calaykum soo dhowow maxaan kuu qabtaa yaasmiin baa laydhaa dukaan yaroo halkaa ku yaallaan leeyahay waxaan doonaya inaan ogaado qiimaha dahabka walaal yaasmiin dahabka qiimihiisu waa kala duwan yahay noocee baad doonaysaa inaad iibsato anaa doonaya inaan dahab iska iibiyo ma qaadanaysaa sow inaan arka maaha waa intan walaal ma dhammidkooda ayaad iibinaysaa haa walaal imisaad 5 jijimood iga siisanaysaa waxaan ku weydiiyey weli ma arag qof dahab intaa la eg iska iibinaya ma dahabkii qoyska kaydka u ahaaba haaye miyaad iga iibsan mise suuqaan la galaa waxaan kugula talin lahaa giddi hal mar ha iibin dahabka waayahe rahmaad maad u haysanoo lacagta maad siisiin ma waxaad doonaysaa in aad dahabkoo idil rahanto wax kaloon sameeyaan jirine ganacsigaygii bay masiiba ku dhacday adoo raalle maxaa gaadhay ganacsigaaga alaabada guryaha sariiraha fadhiyada iyo kuraastaan iibiyaa dalabkii noo maqnaayee doontu siday baddu liqday innaa lilaahi ma hanti badan baa kaa saarnay doonta waxaa iigu daran waa kharashka qoyska oo aad u badan waa masiibe inta aad hadda haysato yay kaa kala boodinay in yar iibi walaalkayoo isna guursanaya baa kharash iga sugaayee waxaanse walaal imika u baahanahay ugu yaraan hal bil kiradeeda ma kiraad ku jirtaa haa halkaa bil waxaan doonaya in dukaanku ii sii furnaado oo daynta iga maqan ay ii soo noqoto ganacsigaagu malaha caymis kumuu jirin caymisna kumuu jirine dahabkan rahmaad u haysoo may sii siin kartaa hal bil kiradeed هلو وانا علي ها ورعدي صباح وناكسن وانا صباح وناكسن قرر معايا حاجات شوكته وشركتي دسمان جوغاي حق u dhacay eesaa kala iftamasa warbala ma jirta calow shaqo badan baa jirta maanta haaye madhi baa jirta ma gabadhi waarin kaaga soo kordhay haayo waxaan ka baqayaa calow in gurigaasi u dibo khudradda bannaanka lala fadhiyo waa siday u eg tahay haddii ay ku dhegaysan weydo arrinkaasi waa mid laga maarmaan ah isdhegaysi ka sakow gurigii iyo awlaaddii baa ku dayacan warxabdi soo gabadha lacag ma samayso oo iskuma filaan karto haa way samaysaa lacag ku filan weliba kayd ayaan samaynayaa ayay ku leedahay waa si fiican ay dhegayso anigaa talo ku hayee talo wanaagsan soo maaha waar soo anigu saaxiibkaa ma yihi oo talo imaad weydiisan haaya calow tala aan qarayska tuur ahayn ayaan kaa sugayaa saaxib wagar waa hortaas maryan miyay ka adag tahay waar ka soco taladaada soo daaniyow hataa talada qaadasa cabdiyow waxaan ku oran lahaa gabadhan murankeeduba ha yaraaday mid kale iska guurso waar dee sheekadu halkaa may gaadhina calow sidee bay suurtagal u noqon kartaa arrinka aad sheegaysaa soo maad odhan biilka iyadaa bixisa oo way isku filan tahay de intaadan yar mid kale ku guurso
wareerkana ka naso miyaana saa yeeli karin yow haye walaal nabaday yaasmiin hooyo alxamdulilah haddaad soo laabatay xaggee tagtay hooyo suuqaan soo marmaraya waxaan soo eegayey isbeddelada badeecadaha suuqa loo soo iibgeeyey waad soo yara daahdo waxaan is idhi inantii maxaa helay hooyo waa kowdii duhurnimo een qadada inoo sameeyeyso kaalay qadadu hooyo ha inoo dambaysee soo fadhiiso haye hooyo ma wax cusub baad ii sheegaysaa maya mana cusbay dhegayso haye aad baan kuu dhegaysanayaa ii sheeg cusbatalkii baan taleefon ka helay soo maad garan haye laakiin waxaan garan waayey hooyo maxay aniga iila soo hadli waayeen telefoonkayga waaba haysteeni malaha way ku waayeene i dhegayso deg bay u doonayaan inaan qaato dawadii xanuunkayga mar kale waa sidaa hooyo hadday tii hore dhammaatay waa inaad ku xegsiisaata cusubna burooyinka daawayntoodu sidaa uma sahlana waxay ii sheegeen inaan muddo 6 toddobaad ah toddobaad walba hal maalin u tago waa hawl laakiin daawayntaadaa ku jirta hooyo waynu tegaynaa insha allah berri bay la ballameen ma berridan dhow haa weliba lacagtuna waa qadimaadee ma tagnaa imika oo ma soo bixinna ikraan inoo xidh meheradda albaabkeeda oo furaha ku rug calaamaddaa ay ku qoran tahay wuu xidhan yahayna muraayadda inoo saar haye hooyo hooyo soo ma wacnid soo soco inan yahay maanta aynu isbaranne hooyayso adigii ma dhalin ma barasha igu kaa laaban shoow intaad qurbaha ku maqnaydba been iyo waxaan loo joogin baad baranaysid hooyo maxaa dhacay maxaa jidha bal waxii sheeg ma waxaad og tahay baan kuu sheegaa ma iminkaad been abuurkaad samaysay dafiraysa dhammaama inaan khaldamo way dhici kadhaa laakiin adhana waxaad uga jeeddo been abuur anigiibaa beentii aad ii sheegtay aad weli igu dafiraysaa ii sheegda ayaa waxa kugu kelisay hooyay waxba ma dafirahaaye maxaa ka caroota oo ma anigiibaad weli isu ka indhatiraysaa arrintaad samaysay baad ku sii indhacaddahay welina beentii aad sheegtay baad ku sii indha adagtay soo maaha hedhamaamoy ma erayaan ku yidhi baad qoonsatay heer baad gaadhay inaad anigii ii soo dirto taleefon beena si aad u baajiso ballankii aan lahayn jaamac hooyay waxaan doonaya inaan ogaado maxaad doonaysa inaad ogaato taleefon beenaad ii soo dirtay qadadii baad iga baajisay weli waad dafiraysaa hedhamaamay raalli ahow ma doonahayn inaan kaa caraysiiyo keliya waxaan islahaa ogow hedha jaamac wuxuu hooyadaa ka doonahayo ikraan weli waxaad ku sii indha adagtay khaladkii aad samaysay dabeecaddii xumeed ee aabbahaa baad la soo baxday soo maaha hedhamaamay wax ogow la islahaa yaa kuu yidhi ogow yaa kuu dirtay soo ma ogid noloshayda shakhsigii inay aniga gaar ii tahay hooyo iga raalli ahow maya ikraan waxaad samaysay khalad aad u weyn noloshayda shakhsiga ahi ma aha mid adiga ku qusaysa xataa haddii aan doonay inaan guursado walaalkayga dubay joogo oo keliya ayaan u sheegina hooyo aniga waxa aan sameeyey waxay iga ahayd waxaanaad samaysay wax cudurdaar leh oo aan kaa dhegaysanaya maaha aad baan uga xumahay dhaqankaaga noocana iga raalli ahow biliis maam mar haddaad sidan u dhaqmayso iska ilow 50% maalgelintahay aan ku siin lahaa hooyoy biliis iga raalli ahow sidaa ha odhan maya ma maalgelinaya ganacsigaaga haddii aanan marka hore anigu ku maalgelinna waad og tahay inaan bankigu lacag ku amaahinay hedhamaamo iga raalli ahow waa qalad aan sameeyey waa inaad raalligelin buuxda ka bixisaa wixii aad samaysay soo ninkan ku raalligelinahaayo hooyo yaan raalligeliyaa kale kor u qaad taleefonkan dhaqso raalligelin ka bixi wixii aad samaysay iyo sababtii aad u samaysay haddii kale maalgelintii iska ilow hooyoy yaan u sameeyaa raalligelinta haddeer adigaa og haa igraan waan ku gartay waan fiicanahay aduu iska warran adeerow waa fiicanahay waxaan kuu soo wacay inaan kaa raaligeliyo hedhaqaladkan sameeyey maalinkii dhoweyd igraan waa caadi dhib male adeer hedha adeerow iga raalli ahow adiga xumaan uma jeedin qasdigayga waxweydii keliya iga ahayd inaan ballantii adiga iyo hooyaday baajiyana maysa ahayn igraan dhib male waxaasi waan qaatay raallidaada adeer mar kale biliis iga raalli noqo thank you haya adeer aad baad ugu mahadsan tahay inaad ila soo hadashay aabbo raalligelinta badani maxay ahayd gabadh madax adag bay raalligelinaysay maxay ahayd gabadhaa madaxa adagi waa gabadh yaroo madax adag waxay doonaysaa inay ogaato in aniga iyo hooyadeed xidhiir jecel naga dhexeeyo oon hooyadeed jecelahay iyo in kale aabba ma runba maxaa runa yaad jeceshahay gabadhaa hooyadeed
meeda yaasmiin maanta kala bixi maynee bismillaah eedaystaji waa maxay cadhadanaad igula soo kallahday maxaa cadhaa way cadha dhaaftay waxaad ii meermeeraysa garan maayee alaabtaydii ma timi mise may iman eeday bal fadhiiso horta biyahan balcaboo isqabooji anaa kuu warramaye yaasmiin ay maqal aniga biyay qaboojin maayaane waxay qaboojinayaa alaabtaydii oo aad i tusto alaab imika kuma tusi karee waxaad yeeshaa waxba yeeli maayay dhegayso toddobaadkii horeynu ballansanayne bal lacagtaydii baad bucshiro kale ku gashay bismillaah eedda intaa hayla gaadhine runtu waxa weeyaan alaabtii inantaada iyo kontiinarkii ay ku jirtayba waa iga maqan yihiin lama keeniba maye masiibaa dhacday eeddo masiibo maxaya naama lacagtaydii eeddo doontii alaabta dubay ka soo qaaday baddaa liqday baddaa liqdaya na i dhegayso anigu doon baa badiliqday garan maya adigaan ku garanayaaye lacagtaydii ama dalabkii arooska ayaan kaa doonayaa eeddo waxa imika inoogu daran waxa weeyaan inanta la aroosaya in aqal loo dhigo sow maaha haa ii sheeg 5 cashaad haysataa aqalkii inantayda alaabtii oo dhex taalla baan kaa rabaa berriba warka waan kuu soo kooba eeddo adaan kuugu warwar badnaa waxaan iibiyey dalabkan lahaa oo dhan markaa lacagtii baan ku siinayaanoon ku odhanayn khasaaraha ila qaybso alaab baa layga sugaye ma lacagtan inantayda aqalka ugu goglaa khasaarana hayla wadaagine lacagta qabso raallina ahow bulshoy xawaley haween siday banta xaaskaayo ubadka u xanaaniya